Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa wax la yiraahdo quotes of the day. Quotes waa xigmadaha ama xigashooyinka maanta ayaan qaadanaynaa. Ta koowaad ama xigashada koowaad waxay leedahay sing like no one is listening. Waxaad u heystaa sida qofna uusan ku dhageysanayn. Laugh waxaad wax u jeclaataa like you never being heard inaan weligaa lagu dhaawicin. Dance waxaad u qoobka ciyaartaa like nobody is watching inaysan cidna ku daawanayn. And live waxaadna u noolaataa like it is heaven on earth sidii ay dhulku uu janno yahay ugu noolo. yacni walwalka walbahaarka walaaca waxyaalaha iska ilaali sababta qofka markii ama la dhageysanayo ama waxa weeye uu dhaawac dareemayo ama waxa weeye cid kala daawanayso indhaha lagu hayo ama waxyaalo kale uu ka fikrayaba yacni noloshiisa kaamil ma noqonayso. nolosha dhulkuna kaamil ma aha. marka sidaa daraadeed waxa la isku dayaya in lagu siiyo ama lagu sheego waxyaabaha haddaa saas oo kale u dhaqaantid ay ku sahlayso inaad culayskan badan ee ku saaran ee ah adduunyada aad ka takhallustid oo aad iska kala yaraysid. sababta adduunyadu waxa weeye waa wax temporary sidaa daraadeed culays lama waayo maalin walba culays baa kusoo wajahaya laakiin culayska waxa u qaadataa inuu yahay wax laga gudbayo oo na dhaafayo oo kale waa saas oo kale. Okay, waxaa la yidhaha sing like no one is listening, laugh like you have never been heard, dance like nobody is watching, and live like it is heaven on earth. Quote-ka labaad, life is not a problem to be solved but a reality to be experienced. waxa la yidhaha noloshu ma ahan dhib ama dhibaato ama problem wax la yidhaahdo la xallinayo laakiinse waa xaqiiqo la rabo in lagu noolaado. Life is not a problem. noloshu ma ahan dhib to be solved si loo xalliyo. noloshu dhib ma ahan si loo xalliyo but a reality laakiinse waa xaqiiqo to be experienced oo la rabo in lagu noolaado la fahmo la garto ujeedka laga leeyahay iyo qaabka waxa weeye ay u shaqayso. quote-ka saddexaad wuxuu leeyahay the unexamined life is not worth living. nolosha aan imtixaanka lahayn ma ahan mid u qalanta in lagu noolaado. ka waran noloshu haddii ahaan lahayd waxa weeye dhib aan lahayn, haddii aadan murugoonayn, haddii aadan walwalayn, haddii aadan fakirin oo waxya dhibaata ay kusoo gaareen, haddii aan la dhimanayn, haddii waxa weeye qof aad jeclay hantidaadii wax kale oo nolosha hamigaagii ama riyooyinkaagii haddii waxyaabahaasoo kale ay ahaan lahaayeen waxyaaba mar walba joogaya ka waran nolosha wax qiimo ama yeelatay. sababta waayo aan janno ugu baahannahay inaan aadno, waayo aan ugu baahannahay nolol kale inaan ku noolaano markaan dhibno kadib haddii tani ay tahay mid wax walbaba. marka haddii aysan noloshani aysan ahayn mid imtixaan iyo dhib aanu dhex maranno wax qiimaa ma lahaateen in lagu noolaado. saas ayay ka dhigan tahay halfiraalo. The unexamined life is not worth living. nolosha aan imtixaanka lahayn mid u qalanta maahan in lagu noolaado. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. maxaa ku xiga wabashir الصابرين. noloshu ilaahay wuxuu yiri waa in ku itixaamana kiina mataqaana waxa weeye camal wanaagsan ayad kale sameeyo waanu in itixaamana si aan u kala saarno midka runta sheegay midka waxa weeye beenta sheegay. waxyaabo badan oo ayado noocaas kala ku soo arooro quraanka waxa ayna ka hadlayaan imtixaankana ujeedkiisu ma ahan ina lagu ridayo ama lagu leeyahay ku dhac maahan waxa weeye in yani cadaalad la sameeyo in lagu tuso qiimaha ay leedahay nolosha dambe. waxyaabo badan baa lagu diyaarinaya. waxaa laga yaabaa in adigu problemka ama dhibtu ka haysta aad focus garaysid kadibna aad ilowdid natiijadii ama ujeedkii laga lahaa. quote-ka afraad wuxuu leeyahay the way I see it. haddaad rabtid qaabkaan u arko ama sida aan u arko the way I see it qaabka aan u arko ama sida aan u arko if you want the rainbow haddii aad rabtid qaansar roobaadka yacni qaansar roobaadka saan u arko haddii aad rabtid you got to put up with the rain waa inaad roob keentaa. waxaan fiiri qofku roob ma keeni karo. bini'aadanka awooddiisu ma gaarsiisna hab uu ku keeno roob walow dunida casriga ah maanta awood loo leeyahay in la cariyo duruuraha si roob uu usoo da'o laakiinse ujeedku saas maaha.
ujeedka quote-kan ama xigashadani ma ahan in qofka laga rabo inuu roob keeno, laakiinse waxaa jira wax kale oo ku dhex qarsoon. halxiraadahan xigashadani waxa ay noo tilmaamaysaa ama nagu dhiirigelinaysaa inaanu la imaano wax walba aan u baahannahay si aan u gaarno ujeedkeena ama hadafka ama yididiilada aan nolosha ka leenahay. tusaale ahaan oo kale the rainbow, hadda waxaan rabnaa inaan aragno waa rainbow ama qaansar roobaad. qaansar roobaadkana waxaa lagama maarmaana inuu roob jiro. roob isagoon jiran qaansar roobaad ma arkidid. saa daraaddeed haddii aad rabto ujeedkaaga inaad gaarsiisid, inaad gaadhid nolosha, waa inaad u bareedhaa, waa inaad qaadataa wax walba oo ama wax walba oo aad ku gaari karin. marka waa saas ujeedka, the way I see it, habka aan u arko. if you want the rainbow, haddaad rabtid qaansar roobaadka, you got to put up, waa inaad samaysaa with the rain, roobka waa inaad samaysaa. roobkeen aan ku tusay qaabkaan u arkay. quote-ka shanaad, watch your thoughts, waxaad iska ilaalisaa ama si fiican uga taxadardhaa fikradaada. why? they became words, because waxay noqdaan erayo. watch your words, erayadaadana si fiican uga fakar oo ka taxadar inta aada oran. why? because they became action, sababta waxay noqdaan ficilo. watch your actions, ficiladaada ama falalkaagana si fiican uga fiirso. why? because they became habits, waxay noqdaan caado. watch your habits, caadadaadana si fiican uga fakar, sababta they became character, waxay noqdaan dabci. watch your character, dabcigaagana si fiican uga fakar. it becomes your destiny, waxay noqotaa halkii aa u socotay. nolosha dabci wanaagsan baa laga rabaa, iyo dhaqan wanaagsan iyo hab wanaagsan inaa ugu noolaatid. yacni waxaa jira silsilad, qofka noloshiisu waxay u shaqaysaa sida silsilada oo kale, silsilada ama tusbaxa oo kale. haddii qayb ka mida la furo, qaybaha kaloo dhan waxaa suurtagala inay israacdaan haddaan la qaban. okay, so erayadaada marka hore fakarkaaga waa ka ugu muhiimsan. fakarku waa waxa ugu muhiimsan ee noloshan haga. qaabkan u fakarana haddii ayna bedelin, waxyaabaha aan falano iyo waxyaabaha aan ku hadlano iyo waxyaalaha waxa weye aan ku dhaqmano iyo qaabka nolosheenu noqotaba isma bedelayaan. marka tusaale ahaan kale haddaa carootid oo kale aad xanaaqdid, haddaad caradaadii aadan bedelin oo aadan qaban, dee waxay kugu kallifaysaa wax aad kasoo waaqsan weydid inaad waxa weye samaysid. adigu raalli kamaada ahayn, laakiinse waxaa yimid wax dheeraada oo noloshaada dheeraad ku ah. kadibna waxaas waxay kugu sababeen inaad samaysid wax noloshaada aan loo baahnayn, ama waxa weye aad suurtagal ahaynba inaad samaysid, lagaaba rabinba inaad samaysid. marka saa daraaddeed watch your thoughts, afkaartaada si fiican isaga dhowr oo fikir fiican ku fikir, wax wanaagsan ka fikir, si toosan oo taban u fikir. watch your words, erayadaadana why they became waxay noqdaan words. watch your thoughts, fikirkaaga si fiican waxa way uga taxadar. they became words, waxay noqdaan erayo. watch your words, erayadaadana si fiican uga fikir. they became actions, waxay noqdaan fal. watch your actions, falalkaagana si fiican uga fikir ama uga taxadar. they became habits, waxay noqdaan caado. watch your habits, caadadaadana si fiican uga fikir uga taxadar. they became character, waxay noqdaan dabci. watch your character, dabcigaagana si fiican uga taxadar oo markaad waxa weye ilaali macnaha wax walba oo dabcigaaga ku amrayo ha samayn. it becomes maxay noqotaa your destiny, goolkii ama meesha u socotid ba noqonaysa. uu ku halaagi karaa dabcigaaga. quoteska maanta intaas kusoo gabagabeynayna insha allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen. intaan quotekan ama kanoo kale mid lamid aan ku kulmi doono, waxaan kaga tegayaa nabad iyo nolol kulantay. fadlan haddaa ku cusubtiin kanaalka ha ilaawinin inaad subscribe saadhaan. haddaa hore noola joogtidna like iyo commentiga iyo shareta ha ka baqaynina. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.